waxaan aad iyo aad uga mahad celinaynaa wafdiga iyo madaxweynahaba sida wanaagsan oo sharafta iyo karaamada leh inoogu soo safreen inay nagala qayb galaan xafladda caleemasaarka natiijadii ka dhalatay doorashadii ka dhacday Puntland 8 bisha waxaan ku faraxsannahay inay shacabka Puntland iyo dawladduba ay maanta ay soo dhaweysay madaxweynaha iyo wafdiga ballaaran la socday iyo safiirada Soomaaliya u fadhiya magaalada Muqdisho caalamka waxay noo tahay sharaf gaar ah waxaan runtii aad iyo aad uga mahad celinaynaa sida sharafta leh oo waalidnimada leh adiga iyo shacabka reer Puntland sida wanaagsan loo soo dhaweysay aniga wafdigeyga iyo martisharafta kale oo la socota runtii waa filaynay soo dhaweyntan wanaagsan oo waalidnimada leh waa filaynay xaqiiqatan insha Allah hadii Ilaahay yiraahdo waxaan rajaynaynaa inaan joogno adiga laba casho hadii Ilaahay yiraahdo waan idin la wadaagno caleemasaarka iyo xalka dabaaldega oo aan la hadalno shacabka reer Puntland khaasatan reer Garowe hadii ay yiraahdo waana ku hambalyeynaa doorashadii sida wanaagsan u dhacday oo transparency ahayd oo adduunka oo dhan laga fiirsanayay murashaxiintii kale iyaga naftooda waxaan leeyahay hambalyo yaan leeyahay sida wanaagsan intii uga qayb galeen doorashada kulligood ay u aqbaleen natiijada